السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa qaybta saddexaad oo ah muuqaalkii aan kaga hadlaynay OneX Partner. ugu horreyn waxaan isla aadi doonaa OneX Partnerkeena aan isla geli doonaa oo lacagtii oo aan idin sheegayo oo ahayd $47 toddobaadkan $2 ayay ku darsoontay oo waxay gaartay $47 haddii aan isla fiirino OneX Partnerkeena oo aan gudaha u galno waxaan isla arki doonaa inta lacag oo markaas inoo saaran oo ay inoo wareejin doonaan maanta oo Talaado ah. sidaad arkaysaan lacagtu waxay gaartay $47. waxaan isla tegaynaa qaybta payment history-ga ayaan isla tegi doonaa si aan u aragno in lacagtan ay maanta oo Talaado ah wareejin doonaan iyo in kale. markaan aadno kadib meeshaas time interval ay ku qoran tahay waxaan kasii dooran doonaa current month ayaan kasii dooran doonaa. current month markaan kasii doorano generate ayaan dhihi doonaa. kadibna markaan isla fiirino toddobaadkii hore $42.69 ay ahayd markii ina dhaayeen lacagtaas lama wareejin karo oo lacagtaas toddobaadkan ay dib ugu dareen iyo wixii oo markaas yaryar oo toddobaadkan processing aynu ku jirtaa hadeertaan. saacadooyin ayaa ka soo wareegatay oo haddana waxaan isla dib ugu laaban doonaa OneX Partner account-keena ayaan dib ugu laaban doonaa si aan iskula aragno in lacagtii waiting ay gashay in kale. waayo saacadooyin ay ku soo wareegatay oo hadeertaan saacaddu waxay sii maraysaa lacagtii way wareejiyeen oo mar hore ayayba wareejiyeen. waxaan isla aadi doonaa OneX Partner account-keena ayaan furi doonaa marka hore. markaan furno kadib oo aan gudaha u galno waxaan isla arki doonaa in lacagtii ay wareejiyeen iyo in kale maadaama wada hadal badanna dhex maray toddobaadkan oo markaas ii ballan qaadeen in maaragtay Talaadada soo socota lacagta ay wareejin doonaan maantana ay Talaado tahay. marka waxaan sugi doonaa intuu refresh ka qaadanayo page-ka. bartii hadday ay ku qorneed $47.12 hadeertan waxaad arkaysaan waa zero available to withdraw markaad fiiriso. haddaan isla aadno qaybta payment history-ga oo aan kasii doorano current month aan kasii doorano kadibna aan dhahno generate waxaan arki doonaa in lacagtii ay bixiyeen oo iyo in kale hadday waxay ku jirtay processing ay ku jirtay. haddana waxaad arkaysaa lacagtii status qaybteeda inay tahay paid lacagtii in la bixiyey ayaad arkaysaa. lacagtii Player ID-gii ay wareejiyeen Player ID-ga waa ka soo wareejiyey oo waxaan u soo wareejiyey baayirkeena ayaan isla aadi doonaa hadeertaan baayir ayaan isla aadi doonaa oo halkaas aan idinku tusi doonaa $47.12 baayirka ayaan u soo wareejiyey oo akoonka baayirka ay ku jirtaa hadeertaan. baayirkeena ayaan furi doonaa kadibna passcode-keena ayaan gelin doonaa ama biinkeenna. markaan kelino kadib sidaad arkaysaan baayirkeena waxaa ku jirta $0.73 oo lacagtaas ayaa ka hartay lacag sarif laan u diray. sidaad arkaysaan qaybta history markaan ku dhufano $47.12 sidaad arkaysaanba way inoo soo direen oo lacagtii wayna soo gaartay $47.12 ahayd wayna soo gaartay. haddii aan isla fiirino taariikhda iyo wax walba haddii aan isla fiirino oo maanta oo Talaado sidaad arkaysaan ID-gi waa kaas 15 Abriil 2025 ayay soo direen 7:57 markay ahayd ama 13 saac markay ahayd iyo 57 lacagtii waxaan u wareejinay sarifla ayaan u dirnay $46.55 ayaan u wareejiyey. sidaad arkaysaan sarifla la yiraahdo Soomaali sarif ayaan u wareejiyey oo aan hore wax ugu sarfan jirin ayaan u wareejiyey. waa runtii sarifla aad markaas maaragtay oo qiimo badan oo u degdegsiimo badan. qaybta WhatsApp markaan fiirino oo Soomaali sarif aan kasii dhufano waxaad arkaysaa inaan u wareejiyey $46.55 lacagtiina si nabad ah ama si guul ah ay noogu soo direen. lacagta waxaan diray 10:43 daqiiqo ayaan u diray sidaad arkaysaanba. isla daqiiqada kadibna wayna soo gaartay lacagtii haddaan fiirino 10:48 daqiiqo ayayna soo gaartay lacagtii Soomaali sarif $44.33 oo EVC ah ayayna soo gaartay lacag.